waxaa shir inoo gudoomiyey ra'iisul wasaaraha shirkaas waxaa kaloo ka soo qayb galay taliyaha booliiska iyo taliyaha traafikada dhammaanteen waxaan ka hadlaynay badqabka baabuurta xamuulka qaada wadanka oo loo baahan yahay in tayadooda sare loo qaado number 2 baabuurtii oo ku soo badatay dekada iyo wadooyinka dekada oo dhan oo aad u tira batay alxamdulillah xilligii coronavirus uu jiray ayaa waxa dhacay in canshuur dhaaf ama canshuurta laga yareeyay raashinka yimaado taas ayaa waxay keentay in wadanka uu soo galo maraakiib badan ay timaado oo raashin wada taasna waxay keentay in baabuurta loo baahan yahay gudaha looga baahan yahay dekada ay soo bataan tii oo keentay in jidadka oo dhan ay buuxsamaan marka waxaan ka wada hadlaynay sidii baabuurta amnigooda badqabkoodana kor loogu qaadi lahaa amniga baabuurta loo xasilin lahaa loogana ilaalin lahaa wadooyinka iyo jaamka sidii looga ilaalin lahaa arintaasna go'aano ayaa laga gaaray go'aanadiina hadda ayaan fulintooda insha Allah tacaala aan galayna waxa kale oo dib u bilaabeynaa insha Allah tacaala sidii badqabka baabuurta oo dhan aan tayadooda kor ugu qaadi lahayn oo ahaa shuruuciyo jiray muddo hore ayaan dib u bilaabeynaa insha Allah tacaala baabuurta waaweyn waxaan u sameynaynaa meel holding areas oo inta ay dekada ka galayaan xamuulkooda ay ka soo qaadayaan jidadka ahayn oo lagu sii hayo haddii Ilaahay ka raali noqdo iyo sidii aan ugu fududeyn lahayn dekada marka ay alaabta ka soo degto baabuurku uu galo isla markii inuu ka soo qaato uu soo baxo service-kooda loogu dadejin lahaa meesha hadda mararka qaarkood ay ku daahaan in markabka laga dejiyo ama waxa qalabka wax raro ay yar yihiin sidii loo boobsiin lahaa oo ganacsatadana loogu fududeyn lahaa waxooda ayaan ka ballanay hadda haddii Ilaahay ka raali noqdo guddi ayaa loo saaray guddigaasna 2 maalin gudahood haddii Ilaahay ka raali noqdo in ay tala bixin degdeg ah ay ku keenaan laakiin maanta ka bilaabato baabuurtaasi sidii jidadka looga qaadi lahaa waan isla go'aaminay galabtayna bilaabanayso insha Allah